معمر محمد عبد السلام أبو منير القذافي madaxweynihii dalka Liibiya nin hurdada u diiday reer galbeed kuna weerari jiray fagaarayaasha caalamka ku soo dhawaada daawadayaal muuqaal aynu uga hadli doonaa Korneyl Muammar al-Gaddafi قد تندمون يوم لا ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة يشتري بضائع سويسرا هذا كافر kani waxaynu u jeednaa Korneyl Gaddafi waxa uu ku dhashay magaalada sirta ee dalka Liibiya sanadku markuu ahaa 1942 Gaddafi wuxuu ahaa hogaamiyaha kacaanka shacbiga kaas oo dalka inqilaab ku qabsaday sanadkii 1969 asagoo xukunka kala wareegay boqor Idriis Muammar al-Gaddafi ilaa yaraantiisii wuxuu ahaa mid aad u jeclaa inay midoobaan ummadda Carbeed markii uu xukunka la wareegayna wuxuu isku dayay inuu mideeyo Carabta oo dhan dhanka kale Gaddafi wuxuu aad u nacbaa reer galbeedka asagoo oo laf dhuungasho ku noqday kana soo horjeestay afkaarahoodii ilaa ay ugu dambeystii weerar ka dhan ah Gaddafi ku qaadaan dalka Liibiya kaas oo ay barakac iyo burbur baaxad leh ka geysteen daba aynu isla eegno weerarkii dalka Liibiya ee xukunka looga tuuray Muammar Gaddafi xilli sidaa u sii fog maba aha waa sanadii 2011 weeraro rogaal celis ayaa waxay dhex marayeen kooxihii mucaaradka iyo ciidamadii Gaddafi diyaaradaha isbahaysiga ee NATO waxay taageerayeen kooxdii mucaaradka ee dagaalka waday Gaddafi iyo ciidamadiisuna waxay ku faraadeegayeen in maamulku uusan gacantooda ka bixin ilaa lagu soo gaaro maalinkii 20 Oktoobar ee isla sanadkaas oo mid ka mid ah dhuumaha biyaha ee saxarahaas laga soo saaray madaxweynihii muddada dheer xukumayay dalkaas oo taag dareysan waxa uu ku qeylinayay waad ogtihiin ani wax qalad ah kama sameyn ee caawiya laakiin halkii wanaad ka sugay habad ayaa wajiga looga dhiftay halkaas ayaynu ku soo gabagabowday noloshii dheereed ee ku saabsaneed maamulka iyo gacan ku haynta dalkaas